waxaan daabshiil aan ugu baaqayaa in hadalka aan dhalinyarta aan ka mid kahay ku adkeynaya daabshiil bariyootan lama galin oo leenahay madaragtay wax noo qabto ama wado wax nagu daranay oo bariyoot kama galinay wixii aan soo gashanay inaanu ka helaayo waajiba lacagna madaragtay lacag waa lacag wareegtoon waxna waa la gashadaa waxna way ka soo baxaan walaa dhalinyar sport bay noqotay walaa dhalinyar bay madaragtay walaa wadooyin bay noqotay walaa jaamacadooyin bay noqotay waxa la waxay meel kaga jirtaa ma jirto dabarigan waxa ka dhigaysaa madaragtay ilaababiyo waxay dhigaysaa xaasid meeyay wixii doontaa dhigtabe laakiin gobolkii dhanaay kaalinta saddexaad gale wax gashanay anigu dhaqaalaanu gashanay ma lihiin wax nasiib ma lihiin dhaqaalaanu gashanay gobolkii kaalinta saddexaad galay ee markaanu qiimeynay ayaa maanta madaragtay wax looma qabin wax loo qabtay meel kale wax loo qabtay hawo qabata hawo wareegtay waxaanu gashanay ka doonay anagu oo leenahay madaragtay jaamacaduna way badan yihiin waa eelo waa amuud iyo madaragtay iskuuladaba marka waxaan oranaa madaragtay dahabshiil waxaan leenahay haddii lagu heeso anaguna aan ku geeraaranay in lagu geeraarin bad suuban malaya madaragtay xawaaladuna way badan yihiin inaad dadka waagin magaalada way degan yihiin inaad macna qabiil noqotiyo in lagu geeraaro lagu heeso maada meesha heeso ay ku dhamaatay geeraaro ma naga sugaysan malaya runtii waxaan qabaa fikirkan dhalinyarto maanta ay qabto gobolka Awdal waan ognahay dahabshiil maanta waa wax international waa adduunka dhan kule xafiisyo su'aashu markaa waxay tahay gobolka Awdal markii hore farta lagu gudi jiray ma isaga samaystay oo sabab ah inuu gobolku ka socnaado gobolada kale mise cid ba mas'uulka inuu socnaado gobolkaasi waxa cadeyn ugu filan tan maanta way afar gobol ba dhagax la dhigay waxaan ka xumahay Awdal oo ahay hoygii waxbarashada Soomaaliya iska daa Somaliland oo waqti dambe soo asaasantay in haddana maanta waxbarashadii isaga lagu dhiirigelin lahaa maanta gobollo kale laga bilaabo waxqabadyada runtii ma ahana wax yaani maanta ay leedahay Awdal dahabshiil waxa nasiiso waxa kaliya aan rabnaa wixii dahabshiil la gashaday waayo shirkadu ma aha mas'uuliyadeedu inay dadka ka shaqaysato waa in bulshada shirkadu ay ka dhex dhisan tahay la ahaado wax isku tiirsan waayo way isku tiirsan yihiin waxaan leeyahay in war fadhigaas aad maanta sameeyeen madaxda dahabshiil fadhi ka duwan oo noqdaan hawshaas sida ugu dhaqsiyaha badanna gobolka Awdal wixii aw lahaa iyo wixii wax qabadkiisii marka la qiimeeyo wixii kaalintii uu kaga jiray wax qabadnimo maanta dib ha looga fariisto ha looga fikiro sidii dib isaga loo meelin lahaa hawshiisina hal galo weynahay waa hawshii hore ee gobolka Awdal xukuumaddu dabada ay haysatay bay tan noqonaysaa oo caalxumo ku sii birtay shacabweynihi Awdal bay noqonaysaa hormaro fara badan oo ka socda haday tahay dekado haday tahay laamiyo haday ay tahay isbitaallo haday tahay iskuulo haday tahay macadiyo waxyaabo fara badan oo gobolkan qabsadaa waxa soo dhan isagu ma ku kaliyooba dadkiisa iyo wax weeyaan inta u dhalatay unba kali ku ah bismillaahir rahmaanir rahiim halka waxaan isku niminaa wadayaal badan oo gobolka Awdal u dhalanay inaan ka hadalno dakhliyadan ay la xiriirtay dahabshiil meelo badan oo kamid ah gobolada Soomaaliland sabab gobolkan kaalin weyn ka jira dadka lacagaha loo soo diro inta badan ama kaalin labada ka qaata maslaxad u noqonaya waxa ay shirkadu inay wixii aan gashano ee dadkaygu noogu soo diraan inay iyadoo dib loogu soo celiso si ay noogu soo celiso marka waxaan rajaynaynaa in bal jaamacadaha ay ka dhistay dhulka laboratory-ga ay dhigtay jaamacadahaas oo kale dhagax ay dhigtay iyo galaasida u dhisayso inay jaamacadaha gobolka wadamada laba Somaliland ay dhigto haddii wax kale jiraan ay shirkadda madaxdeeda wax ka codsanayaan inay noo soo sheegaan oo bal waxay gobolka inta uga qaban waayeen gobolada kale uga qabanayaan gobolka tabasho badan baa ka jirta dhinac walba iyadna haday dhinac walba hadii laga cawdo waa dib laakiin dhinacaas waxa ka jeedinaa dahabshiil iyo maamuladiisa iyo dadka shaqaysan insha Allah soo wada xsaab badan